daawada haddii aad tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalkeena xigmadyahan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furato gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha ilmaamin inaad like share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan mahadsanid weligaa guuleyso wiil dhakhtar ah ayaa gabar ay xiriir lahaayeen u soo bandhigtay guur balse gabadhii markii ay aragtay duruufta adag ee ka muuqata wiilka waxay ku xirtay hal shardi oo ah in uu hooyadiisa keenin goobta arooskoodu ka dhacayo si ay u aqbasho guurkiisa dhakhtarkii ayaa wareeray oo garan waayay wuxuu sameeyo wuxuuna go'aansaday inuu raadiyo qof uu ka heli karo talo oo la xalliya xujadan hortaagan guurkiisa wuxuu xusuustay wiil ay saaxiibo ahaayeen aabbihiis oo bare ahaa waxaana ka dhigi jiray jaamacaddii uu ka soo aflaxay aadna uu u ixtiraami jiray barihii ayayna kulmeen markii ay sheekaysteen ayuu weydiiyey waxa uu yahay shardiga ay gabadhu ku xirtay guurkooda wiilkii ayaa isagoo xishoonaya ku yidhi aabbahay wuxuu geeriyooday anigoo 1 sano jir ah hooyadayna waxay qaban jirtay shaqooyin yaryar oo dharka ayay u dhaqi jirtay dadka deegaankeena degan waxayna sidaas ku dabiri jirtay nolosheenna balse dhacdooyinkaas hore ayaa saameyn igu yeeshay oo ii geysanaya murugo iyo xanuun badan caqabadna ku ah guurkayga waxaan rabaa inaan bilaabo nolol cusub barihii ayaa ku yidhi waxaan wataa hal codsi oo ah in aad marka hore mayrto oo aad dhaqdo gacmaha hooyada ka hor inta aadan aadin gabadha xaggeeda ugu dambayna berito igu soo noqo markaas ayaan ku siinayaa ra'yi iyo talo kugu habboon wiilkii ayaa aaday gurigooda hooyadii ayuuna ka dalbaday inuu u mayro gacmaheeda waxa uu bilaabay inuu si aayar ah u dhaqo gacmaheeda markii uu arkay dhaawaca iyo dildilaaca ka muuqda gacmaheeda ilmo ayaa ka soo dadatay indhihiisa dareen qiiro leh ayaana galay waxayna ahayd markii ugu horreysay oo uu arko gacmaheeda sida ay u adag yihiin iyo dhaawaca ay ku reebto shaqada dhardhaqista ah markii uu hooyadiis gacmaha u dhaqay ayuu wacay barihii isagoo sugi waayey inta laga gaaro berito waa uu u mahad celiyey maadaama uu ka helay caqli celin wanaagsan oo uu ku gartay xaqa ay ku lahayd hooyadii oo uu dayacay kal hore wuxuuna ku yidhi hooyaday nafteeda ayay ii soo hortay si aan u helo mustaqbal wanaagsan anigana si aan u helo gabar guurkeeda uma dayacayo nolosha hooyaday haddaba ogow walaal qofkaan naftiisa u hurin hooyadiis ma heli doono qof kaloo isagana u hura naftiisa allah u hibay hooyo cimri dheer iyo cibaado suuban aakhirana jannatul firdaws ka yeel hooygeeda allahumma aamiin